Asalaamu calaykum muhiim. Maxaa ku dhacay? 20 jeer baan ku soo wacay. Durtoomo xiriirkeena 8 bilood iyo sabootinka socday ayaad leedahay waan kala dhamaanaynaa. Waxaas wax macquul ma aha walaal. Fikir. Laba qof oo sidaa ku kala tegay manihin. Dib u fikir. Carradu waa waxa kaliya ee keenaya inaad go'aan degdeg ah qaadatid. Carradu kuma fiicna. Walaal istaji. Muhiim. Iminka saddexda cisho telefoonka ka qan weyday. Iskuulkeygii meel aan kaga waramo ma garanayo. Taasna adiga sababa iyo jacaylkeena. Waxaad doonaysaa adiga daraadda inaan iskuulka iyo waxbarashada uga haro. Please i aamin. Fikri. Abo Maxaa ku dhacay? habaabe Maxaa ka khaldan? habaabe qof aan saaxiibna la hadlayo aan cod u diray. Samira, iska waran. وفيعاني يا أبا الحمد لله Ma wanaagsanti. جودك أنت Sikriya caawa wuxuu ku yeedhi mid ogtahay. ما يا أبا Maxaas leedahay weeyaan. والله ما قرني بل خير لك سوينا Caawa Sikriye 20 sanadood ka hor sheeko aan lahaa oo inta soo leekaanaysan aan idinka sheekeyn ayuu isagu u noqday caawa inaan sabab u noqdo inaan caawa idinka sheekeeyo. Marka sheekadaas ku faahfaahin maayo laakiin waxaad ka noqon doontaa bal dhageyste. Malaa weli waanooy iyo talo mooyaane sidoo kale sheekay intan leeg idinkama sheekeyn. Sanadku markuu ahaa 1999 ayaa waxaan ku noolaa tuulo la oran jiray Moholli. Halkaas oo familygayga, reerkayga annagu caadi ahaan aan wada deganayn. Oo aan ahayn reer dhulkaas deegaanku ah. Reerahaygu ay ahaayeen xoolo dhaqato. Aniguna aan ahaa inay yar oo meeshaas ku dhashay xoolahaasi arigaasna raaci jiray maalin walba. Noloshiisana cabi jiray caanaha geela ama caanaha ariga. Markii da'daydu ahayd 14 jir anigoo markaas geela raaca oo aabahay waxa ugu weyn oo uu igu aaminay ay tahay geelaas tuulada aan deganaynahay tuulo la yiraahdo magaceeda Moholli ayaa waxa dhacday maalmaha kamid ah ayaa anigoo geel doonaya markaas geelaas geel naga lumay oo laba halaad ay yihiin baadi goobaya ayaa waxaan isla kulnay gabadh aad iyo aad u qurux badnayd da ahaan markaas aniga aan filayo inay hadday ugu yar tahay hal sano oo kaliya ay iga yar tahay kadibna waan wada sheekaysanay dhaqankeena hore ee Soomaalida waxa jira qaab ninka iyo gabadhu wada sheekaysan jireen oo ahayd in ninku geed soo daba istaago gabadhuna ay geed dabadiisa soo istaagtay kadibna waxa ugu horeeyay laga wada sheekaysan jiray waxay ahaan jirtay in haybta iyo reerka iyo halka ay degan tahay iyo qolada ay tahay la isweydiiyo intaas la wada sheekaysanayna waxa lagu wada hadli jiray ama lagu wada mahmaahi jiray maasooyin ama mahmaahyo la isu mahmaahayo si maadaama dhaqankeenu innaga sida ahaa waqti badan kadib gabadhii waan isfahanay waan wada sheekaysanay waxaana noqonay laba qof oo isjecel anagoo waliba da'yar miyiga marka la joogo waxa aad iyo aad muhiim u ahaan jiray ama maaragtay wax la isla yaqaanay ahaa in marka inanka yar uu 15 jir gaaro in uu guursado ama mataqaanaa gabadh la tago in wiilka yar marka uu 15 jir gaaro in uu gabadh guursado gabadhaas qaabku guursanayana ay tahay inuu la tago oo mataqaanaa kadibna saas lagu guuriyo aroosyadii miyiga ka dhacayay kala duwanaana loo qabto sida gaafkii ma jirin sida nimanka waqtigan casriga ah meelahan aad joogtaan guryahan quruxda badan leh ee idinku mataqaanaa ku dhalateen yani waxyaabahan idinku haysataan taleefanadan iyo waxyaabahan ma aysan jirin waxa ugu weyn la wiil iyo gabadh ama ku wada sheekaystaan waxa ahayd ay ugu horeey ka wada hadlaan inuu yahay guur waxa iyadoo ka bixinayo goorta ay isguursanayaan aragtidooduna may lahayn waqti maarta cayiman oo la soo imaado waqti cayiman oo la balamo waqti cayiman oo maaragtay la wada haasawayo laakiin waxa ahaan jirtay kolba nasiibkiinu sida suuqin beego sheekada caawa Samiray aan ka dabageeyay waxa ugu weyn horta inta ka sheekay waxa weeyaan in wiilkayga Sakariye aan caawa arkay isaga ka murugaysan ama maaragtay ay dhibayso gabadh ay isjeclaayeen 8 bilood aniga laakiin waxaan ahay aabihiin waxa laga yaabaa waxa idinku maanta marka idinku dhalinyaro aad tihiin aad ka garanaysan jacaylka inaan in ka badan anigu ka garanayo in wax ka badan ka faahfaahin karayo inaan caawa ka hor aanan idinka sheekeynin 20 sano ka hor jacaylkii aniga iyo gabadh Sucaal deeraada na dhex maray aniga waliba caawa si secretary ku sheegay oo hooyadiin doonayay inaanay ogaanin in magaceediina sababtaan idinku bixiyay haddana caawa waxaan sirhaan ku sheegaya
in adigana Sakariya aan kugu bixiyey adigana aan kugu bixiyey Samiira jacaylkaas 20 sano ka hor aniga igu dhacay intaas wixii ka dambeeyay marka jacayl leeyahay qofka waqti uu ku dhacayo ama waqtiga uu dareemayo ma dareemo oo ma ogaado gabadhii muddaan jeclayn waxaan ku heshiinay guur da'deeduna maadaama 15 jir ay ahayd oo markaas isbelief gareys oo markaas ogaa inaan noqday nin buuxa oo aan guursan karayo qorshahayga ugu weyn waxa ahaa inaan guursado maan haysan hanti anigu aan leeyahay iyo waxaan ku guursado laakiin waxa ugu weyn ku xisaabtay waxa ahayd geelaas aniga aabahay leeyahay inaan afar neef oo kamid ah inaan iibsado kadibna aan saa ku guursado waliba aanan aabahay iyo family-gayga ogolaansho ka qaadan aan gabadhaas la tago tiyadii noogu badnaa waqtigii ugu badnaa gabadhaas aan wada qaadanay waxa ugu badan ee ka wada sheekaysanay waxa ahaa wadciga miiga yaala sida haday noqoto abaarta sida haday noqoto xoolaha sida haday noqoto maaragtay ariga sida loo waraab geeyo sida nolosheedu anaga ay ku bees gareysan tahay waxaas oo dhan ayaan ka wada sheekaysan jirnay laakiin haddana waxaan hayn laba qof oo si qalbiyeena isu jecel mid kasta midka kale uu indhihiisa ka jecel yahay intaas kadib waxa dhacday maalmaha kamid ah anoo ku talagalkaygu yahay inaan guursado oo maaragtay waqtigaan soo wada qaadanay gabadhaas oo ahaa waqti aad iyo aad u fiican jacayl la sheegana kii ugu quruxda badnaa oo markaa aniga aan dareemayay oo uu yahay gabadhaas uu yahay aabahay uu sheegay in magaalada la dirayo sababta ugu weyn ee magaalada lagu dirayana ay tahay in family-gaygaas markaas la joogay oo mid kamid aan wax baranin inaan noqdo qofka ugu horeeya ee magaalada la geeyo ee wax barta kadibna family-giisa miyiga jooga anfaca runtii maalintu aabahayniga saa igu sheegay ma aanan jeclaysanin oo ma aan rabin waayo aabahay waxa uu la doonayay waxa ahayd iskuul iyo waxbarasho iyo inaan meel hoose wax ka soo bilaabo aniguna waxaan taagnaa dhalinyaradiina imika joogta halka ay taagan yihiin ee ah guurka imika marka magaalooyinka la joogo qofka dhalinyarada inuu guursado wax buu soo bartaa maaragtay qofkii chance soo helaya waqti bay ku qaadatay sanado badan oo 10 sano 12 sano 13 sano kamid ah ayay ku qaadatay inuu guur isugu diyaariyo laakiin waqtigaas aabahay doonayay inuu waxbarasho ii diro aniga waxaan u diyaarsanaabay inaan guursado gabadh aan jeclaa laakiin waqtigaas ma aanan u sheegin ugu dambeyn waxa dhacday in maalmaha kamid ah gabadhiisu caad ahayd aan u tago una sheego in aabahay magaalo ii wado ninkayga hankiisu taagnaa inuu guursado gabadhan jeclaa iyaduna ay jeclayd in magaalo loo wado magaaladaas sababta loogu waday ugu weyn ay tahay in magaaladaas waxbarasho laygaga daro si aan reerkayga iyo family-gayga u soo anfaco run ahaantii aad iyo aad bay uga xumaatay maaragtay wax anigu aan samayn karayaana may jirin oo mataqaanaa imika idinka iyo magaalada marka la joogo qofka dhalinyarada ah dee waalidkii siduu ku dilaa way adag tahay oo qofkii dhalinyarada ah imika wuxuu aad u daawada internetka hadday noqoto sida loola dhaqmo hadday noqoto qofka dhalinyarada ah sida aabihii iyo family-giisu ay ula dhaqmaan laakiin waqtigaygaas anaga budbug lagula dhacay oo aabaha muu ogolaynba inaad hadalkiisa uu ku oranayo aad wax ku soo celiso adigu maalin aan geel la joogay waqti ka bilaabmay 2 duhurnimo ilaa 9 habeenimo aniga gabadhaas wada joognay taasoo aniga maalinta geeli aan wadayno uu ambaday oo mataqaanaa aan beelihiyay iyaduna markaas arigii reerkooda la joogtay iyaduna ay beelahisay maalintaas waxa ugu weyn aan xasuustaa waxa ahayd inaan xasuusta wada galnay in waqtigeedii aan soo wada qaadanay sidaan isu soo jeclayn sidaan wax wada diyaarin jirnay qorshayaasheedii noo yaalay wax kasta oo aan isla doonaynay oo aan isu sheegin jirnay waqtiga ugu badan aan sarki jirnay waxa ahayd maalinta kaliya ee loo ogolaaday aniga inaan tuulaha tago waxaan u istaagi jiray meel xaafadooda u jirta 2 kiiloomitir ilaa 3 kiiloomitir intaa wixii ka dambeysay waxa dhacday in subax hore aniga hurdo aabahay goor hore toosiyo oo igu raado maryahaaga iyo waxaaga diyaarso gaarigii baan ku saaraya way soo kaxeeyay waxaan u keenay tuulo Maholen la yiraahdo tuuladaas oo markaa baabuur weyn oo baabuur noocyada loo yaqaan sabax ama shaamboo ay ka soo bixi jireen baabuurkaasi wuxuu soo mari jiray waqtiyada 2 duhurnimo ama 3 galabnimo ay soo mari jiray aabahay oo qacantay haya ayaa wixii keenay maqaaxi kuwa saaxiibiyihiin oo fara badan fadhiyaan waxay yiraahdeen war xasan wiilkii xagaadu wada maanta waxay bacdana sidii iyo waxyaabahan u soo qaaday magaaladii wad geenaysa kadibna wuxuu sheegay aabahay inuu aniga magaalada ii wado doonayana inuu wax soo barto runtii waxa ugu weynaas lahaa waxa ahayd ama aan door bidayay in ay iga qabtaan waxa ahayn kuwa maqaaxida jooga oo ay yiraahdaan waa ninku geela hala joogin kuwa weyn ninkii aynigii wax baranayay maaha celiya laakiin maqaaxidaas waxaan sii xasuustaa
in ugu yaraan 20 nin fadhiyeen laakiin mid keligii aanu iga qabanin oo isagu already mid waliba ku raacay waar wax bar annaga ku baabaanay annaga miis ku noqonay aniguna waxaan jeclaan lahaa ugu yaraan inuu mid keligii ogolaado in mataqaanaa in lagu celiyo meeshaan ka yimid yimigi iyaguna waxay aaminsanaayeen in anigu aan doonayaba in meeshan laga kaxeeyo haddaba waxa si kedisa aan la kulmay waxa si kedisa aan u arkay anigoo maqaaxida horteeda buskudkii awooladka la oran jiray iyo shaaha isku cunaya inantii muddada badan aan isjeclayn oo meel tuulaha dhinaceeda ah soo taagan ina soo eegaysa aniga in baabuurka la saarayo nooc uu yahay iyo sida la kaxayn doono